ها بمغلسة أنت أنا كم مقلة أوكي دتكو مركز حاجة واحد أمليسا ذكرت واقوى ويدياسين هذا يكان أجدو في رجعتي سر بارك تاسا ها يركز محو يركز ayaga dhan waxaan dhan waa la wada dilaa soo ma jeedin dhiigii baa ilaahay ku yaala Ya waa kan mar dhawa hadda la garaacay Soomaal bitamana jaajali gudu Soomaal asiga kula hadla waa kan dhageyso igu dhib bro hello magaca walaal magaca ii sheeg Abdinajiib Maxamed walaal Abdinajiib sidee lagu helay maxaa ku daaray meeqa sana joogta halkaas وجهك كوادي كاميرا حوغا مقدقه كفوقو فتينك بلتك ميا رجتا ها مقعد ايشك والله عبد النجيب محمد والله بلا تلا توم عنت لي مثلا عنت انا ساسا بلا صدع كركي في هذا بربرنا هاي واقف غورميتي مد ادي ليبي غورميتي مد يا ولد غورمي ليبيا تمد سند باجر ليبيا سنة جوكتها من اللي سيدنا بلا ما ننكست اللي سيدعاه وهجاج وما سنتها يا كانوا جوجو ماشي دتك او دتك كله بل waxaan rabaa wajiyadooda iyo dumarka oo kale waxay hal mar midaan ku tusaa yani carabta in ay dhagax dul saareen ee dhaheen yaan laga qaadin ilaa yani maarata British waxaan ka imaan ma garatay maxaa dhagax loo saaray wiilkan waaye waxay dhaheen muddo sanadooda la joogaa ilaa hadda lacagta nagama bixinin anagana qofka ma qaadi karno yani maaragta lagama qaadi karno ilaa iyo ayaga ay ka yimaadaan ama telefoon ay ka soo diraan ay dhahaan yani lacag dhagaxa laga qaado wiilka Soomaaliya ma la hadli karaa haduu Soomaali yahay ها وانا hadli kartaa la hadal halo xoogaa ka hor leexi ninka iftiinka wajigiisa rabaa walaal maxaa dhagax lagu dul saaray walaal sideed kun dollar liga rabaa ilkiiba liga riday gacan ba awrka ah dhagax waa la saaray aad baa dilnahay meeshan waxaan joogaa muddo 12 bilood ah wakaas waa Soomaaliya ilaa hadda ma afurin وكا بيعد حتى مع بن مروبون الدلا الكاس هذا مروبون الدلا الكيلو كوسا سوارت كري سوقين سبحان الله سوارت وما صنت هاي كاسا إلا هذا ما أفرن وأنا صومناي إمس ما له رجع بساري أمريكا يا ولد رجع ما يقمع له بساري رجع حس رجع سدح مال مبساري وهي يقولي بيركا نيو هذا ولا حيا مركا ويلكاس رجع ما لقى دجين كرا العكسيسة وحن كدينا بل إن اللي صوفوا ذي رجع ما لقى دجين كرا والله أتي أرسني وأنيك يعني ماشى إسكاله أنا أرس أمريكيسان سمينا وحكى بدل ما سميكر adiga u dhaxeeya hadii aad la hadasho aad tiraahdo lacagtaasi waa la bixinaya waa la damiinanaya ana kula hadlay lacagta ana damiinanaya dhagax ma laga dajin karaa ninkaas hadii aniga aan saas ku dhaho oo aan dhaho lacagtiisa waa la bixinaa dhagaxa ka daji oo aniga aan damiinto yani xilligii muddada la qabtay waqtiga la qabtay la dhiibi waay lacagta aniga dhulka jiifa ma garatay ilaa meeqa maalin waay meeqa maalin lagu hadii aan nahno isbuuca lacagtaas lagu bixinaya imis way lacagta والله هذا عنو قال سديت كنو دولار على قربا مدة سنة كنا نوجوجا ما قرتي waata adin ma damiinan kartaa dad badanna oo Soomaaliyeedna way ku daawanayaan dadka meeshan fadhiyo dhan haatan ii muuqda dhamaantoodii ma Soomaali ba waxaan dhan wax kulli waa Soomaaliyeed kulli wax yani aan Soomaali ahayn kuma jiro kulli waxa Soomaali ah kuma jiro aniga macnaha hadda yani barnaamijka adiga ku diyaariyay in dadka aniga yani wixii raaxo lagu sameeyo barnaamijka inaan sameeyo hadii la ogaado yani ma aragta aniga bas ay dhamaanaysaa انت marka habeenka xirada kaliya joogo yani maarata waxaan rabo idin sameey karaa laakiin maalinkii ma awoodo in waxyaabaha qaar ay idin sameeyo
canugan maalinka dhagax markuu saa u saaran yahay habeenkii markay carabta iga tagaan anaa ka dejiyo markay imaanayaan ama albaabka ay soo gargaraacaan oo ama gaarigooda aan maqlo haddana waan soo seexiyaa sidiisaan dhagax u saaraa ma garatay وهجاج هذا ممكن جوجان ليبيان ما جوجان عن فيلا يا حرونتا واحد يعني ليبيان إلى جوجا ماله هذا عنو قصان هاي نجح واكسو دجيي وكان هذا واكني سو ما جديد هذا جاريجو ده سو يرو جاريجو هذا سو يرو وان قبنا ماشي سانكو إلا دقيق حسان سكدور سارة سي يعني ما ركت هذا يعني سنانك يخبسنين ويل كان هو يدي اسمه عيس أبي اسمه عيس بلد هذا مقعد سيرات فرح راجع حاجة كتمت ولا مقع يقول علي مقالة ذي كتمت هلا ولا هذه مقالة ذي كسوت تهريت ولا أنا حقت قال قاعد قصدي قول مع هو اللي بوساسي شفتها وهجاج waxaad ii sheegtaa imise maalin ayaad ku jirtaa xeradan adiga wax lacag ah oo laga qaatay ma jirtaa aniga hore waxa la iga soo qaaday 5500 hadda xeradan waxaan joogaa 8 bishii 8 baa soo galay Soomaali garan haye bishii 8 hadda muddo 12 bilood ayaa laga joogaa hadda waxa laga rabaa 8 $8,000 laga rabaa saddex maalmood baa adirtaan dhagaxan uu saaran yahay Soomaali garan waa gartay Ramadan ku bilaabay ilaa adirtaan xawna lama sii weyn la dilaa afar la taga sacwaan la dilaa liibiyan baa soo gala ulbana lagu garaacay ilkayga waa liiga riday nabraan badan baa ugu yaalo fiilooyin baa lagu garaacay koronta xataa lagu qabtaa wallahi Soomaali garan waa maasan tahay igu celi ninka kale idin dhaxeeya liibiyaanka iyo oo igu dhib walaal waxaan doonayaa inaan la hadlo haday dumar ku jiraan gabdho Soomaaliyeed miyaa ku jira maxaa dhacday dumarkii aaway meelta dumarka way joogaan ma garatay dumarka way joogaan ayagana meel gooni ah lagu haya xataa looma ogola in loo tago laakiin ayagana habeen dambe isku daya in ay yani maaragta waardi adagan banaanka dhigana markaan waardi adag banaanka dhigto oo yani maaragta aan gabdhaha ayagana barnaamijkooda ku soo saxaado ilaahay waxa ii muuqda anaga meesha cabsi ku joogno وهجاج dad badan is weydiinaya adiga sida arintan ay kugu saamaxday inaad barnaamijkan aad fududeyso oo adigoo naftirkaaga u dhaxeeya oo dadka Soomaaliyeed adigoo halkaasi jooga sidee kugu soo gashay live kan inaad isiiso oo aad dadkan Soomaaliyeed aad arintan ku saacido horta xerada waxay tahay abti xero yani liibiyaanka way ka tagaan subaxii hore habeenkii hore way iga tagaan subaxii ay yimaadaan waxaad garatay ma yani subaxii hore markay yimaadaan ilaa iyo habeenkii ay la joogaan habeenkii markay ani iyo wiil kale Soomaali ah iyo qolo kale ayagana oo Nigeria iyo Jazul Qamar isugu jiro meesha xerada waardi ahaan kor ka haayo dadka Soomaalida aniga haayo oo yani wax walba yani ayaga ay rabaan ama yani maaragta liga wareystaa barnaamijkan inaan sameeyo hadayaan ku tashtay waayo aniga aad iyo aad u jeclaa in Soomaalida inta ku dhibaataysan يعني ما عرفت أو لساعد ما أنت تجري أنت تساعدين أنا ما عرفت أنا أقول له هذا والله برنامج الله برنامج كاربتان إن إدين سمايه أو واحد لقوا بكرة قبتان وهجاج هذا طمع سنتهاي إن كنت داشيد مر والبا دت كان صوماليات إن دت كان الجراع أيو دت كان كانوا دباتة السنة حانت الدراسة أيو إن إسكود دايس إن تفوضيسو dad badan ku daawanayo waxaan rajeynaynaa in baahiyahooda ay markaas qof walba bulshada Soomaaliyeed ay wax ka qaban doonto rajeynaynaa yaa kala dhiban oo muddo jooga xeradan aad na tusi kartaa waxa jiro dad far badan oo muddo la laayahay jiro oo nolol iyo geeri lagu haynin oo halkan jooga horta wallahi billahi anugaan oo kale markaan kaaga waramo anugaan wuxuu joogaa muddo yani maaragtaa sanadii 3 bilooda ilaa hadda asagoo weli ma arag telefoon garaacanayo subax walbana telefoon garaaca lagu dilaa mar waxaa jirto koronto dadka loo adeegsado anaa bari iyadana video oo yani qarsoodiga kaaga soo qaadayo dhibaatooyinka badan meesha lagu hayo anaa video qarsoon kaaga soo qaadayo kama awood inaa video duubo laakiin habeenkii waxyaabaha qaar ku sameeyo bal ii dhib aan la hadlay isagaan doonaya inaan la hadlo yani
ولا المقعة هالو ها مقعة هلا مر على عوال مر على عوال لا داول ماشي maxaan joogaa sanadka ku dhawaad hadda waan joogaa maalin bir alla ila dhaca telefoon waxaan garaacdana male ehelkaaga xagee joogaan adi magaaladee ka timid markii hore waxaan ka imaaday Ethiopia ka xagee guday bal ka waran adiga noloshaada haatan iga sheekay maxaad cidi u wici weyday muddaad halkaani joogtaa cidi way ku walwalaysaa meesha hadda sanadii 3 bilood waan joogaa meesha maalintaana biraal ila dhaca hadda waxaan cunto ma cuno haddii habeenba waa la garaaca marka waa sidaas niyow magacaagu saddexan ii sheeg nuur cali cawaale nuur cali cawaale marka maxaa lagu xijiyay lacagta maxaa lagu xijinayaa 8,000 iyo 300 lacag dhan oo dollar Ethiopia ilaa iyo Libya imisa ku timid Ethiopia ilaa Libya imisa ku timaadaa ha ma ogi taa ma ogi soo adiga lacagta ma bixin waxba ma bixin hal riyaal ma bixin waa iska soo lugays intaas ma Suudaan lugaad ku tagtay inta waa soo socdoon waa gartay waa tahay waa hagaag marka 8,000 haatan laga rabaa soo seexanina jirtay ya maxaad kaamirada wajiga ku aadi okay haye maxay tiri marka hadda maxaad dalbanaysaa ummadda Soomaaliyeed iyo dadkaaga iyo ehelkaaga iyo ummadda Soomaaliyeed oo idil maxaad ka dalbanaysaa waxaan ka dalbanayaa in meeshan ummadda islaamka ee meesha ku wada jirto dhammaanteed in laga wada saaraan ka dalbanayaa waa tahay waa maasanta ilaahay idin saqiro waa hagaag waa tahay abti waa hagaag ha maxaa kale ku qabtaa waxaad ii sheegtaa gabadhii oo shalay videogeeda la soo dhigay la garaacay lacagteeda waa la bixiyay ma la sii daayay waa la bixiyay ha dhamaantooda gabadhaas waa la sii daayay wiilashii kalena labada wiil kalena labada wiil kale ma la sii daayay lagu dhigan yahay waxyar ka hor ayaga dhan way madluunsan yihiin waxyar ka hor waxaa la qaaday dad oo yani maaragtaa Yurub aaday dhamaantood marka niyo waxay leeyihiin maanta dhan ayaga dhan way faraxsan yihiin anaa waxaan dhahnay oo dad saasa ila soo xiriiray dadkaas inay idin saacidayaan rabaan anigana oo ku faraxsanahay maanta intaas idin sameeyay dhamaantooda sidii hal meel isugu wada keenay wili waxaan dhahay yani maaragtaa cidii bari markii carabta timaado u sheegto in aniga aan video duubay haddaba ayaga u taalaa dhamaantood waxaasna waa kala hadlay sidaas darteed aniga arrintan u sameeyay waa hagaag waa mahadsan tahay gabadhii waa baxday hadda gabadhii waa baxday oo lacagtu waa laga baxshay gabar kale jirtay oo iyadana oo hooyadeeda ifa joogto iyadana ma la sii daayay maya gabadhaas anaga ma ahan waa xeradana maan xero kale waa iyadana laakiin waan raadi karnaa hadduu ilaa yidhaa laakiin gabadhii kale hadda lacagteeda laga bixiyay oo lacagteeda weli oo yani maaragta aan lasoo qaadinaa joogto laakiin iyada laftirteeda oo kula hadalsii karaa hadda gudaha isaga jirtaa way raaxaysanaysaa hal su'aalaan rabaa dadkaas inaad ii weydiiso inay ma doonayaan waddankooda inay dib ugu noqdaan in dawladda Soomaaliyeed ee dalkooda ay ku celiso ma rabaan bal su'aashaas ii weydii hal mar سؤال ما دونيسان إن يعني ما ركتا ماشان لقى سارو أو يعني دب ودنك إني لو علي أكون مادي علنا يا أولاد
mid ka mid ah migu dhiibi kartaa wiilasha ها هذا وكوكو ديبي كرا وكوكو ديبي كرا الو xagee ka timid walaal الو xagee ka timid walaal Ethiopian kiimaada walaal meesha sanad baan joogaa walaal haddii aad heli kartaan waddankaana inagu celisaa walaal waan rabnaa waan rafaadnay waan dhimanay walbaan bir bay nagu tumaan walaalo haddaad wax noo qaban kartaan dad islaam haddaad tihiin walaalo meesha naga soo waxeeya walaalo waan dhimanay bir bay nagu direen waxba ma cunno maalin alla keena qoraada nagu direen qoraada xadadka yaale maanta xadadka meesha yaale habeenkii ma saacan karo feeraha xanuunaya walaalo waan doonaynaa inaan ugu dabalka annaga ku noqono waan doonaynaa haddaad dad islaamka tihiin meesha laga soo furto allo dhibanay ma noolin waa mahadsantahay walaal waa mahadsantahay ati midaada kale hadda waxaan banaanka usoo bixiyey gabdhihii banaanka usoo bixiyey waa codsaday in lasoo bixiyo gabadhaan hadda ujeedo muddo waxay joogtaa yani ilaa meesha ay ku laga beesho ilaa waxay nala joogtaa muddo yani maaragtaa sanad iyo 6 bilood marka yani maaragtaa xataa ma istaagi karto way gariiraysaa waxaa kaloo nala joogto iyada maamadan nala joogto aa ujeedo gabadhana waatan hadda gabdhihii ayaga dhan banaankan u soo saaray maamada marka iyada maamada la hadal adiga macnaha wareeso haye maamada igu dhib نازل عادي هذا اسكدك وجهك دم ولا كدا وجهي ضعف عادي ماما السلام عليكم وعليكم السلام ماما ساتحي في أنا ماشان كل ما كل ما تيسنا أنا قاعدة أو ماشان ما ركتي إلهي أمر كيسمان كل ما يطلع هذا أنا ما وصي قرآن الله ما سي وأنا كل ما تيسنا دبعت وحنا بنكترنا هذه أدوحنا قبل كرتان ناقة هاي غورمتي مثالكان غورمتي مثالكان وحنا بشي طبنات باني بشي طبنات هاي مقالة كتمت يا هاي مقالة كتمت waxaan ka yideen boosaasan ka yimid hooyo ilmaha adiga ma dhalay ilmaha ana dhalay haye ka war xaaladooda hadda way fiican tahay waxba wax dhibaato ma qabaan de waxa weeyaan ilmaha iska nooloo iska bilaasha iska bilaa wax barasho mustaqbalkooda waa dhumay mooyaane way iska roorooyiin hadda iyaga wax waa la siiyaa kulay anaga soo waxbana lama siiyo hooyo sidee halkan ku soo gaartay adigoo caruurtaasi wada sidee liibi ku timid waxaan ku imiday afduub baan ku imid kolkii hore yaa ku afduubtay waxay afduubtay kuwa waxay yidhaaheen meel baan ku geynaynaa aan aad ka shaqaysato oo aad ku noolaato nolol fiican ku gasho adiyaan ku geynaynaa kadib waxayna geeyeen maxaan ku dhaayeen kadib waxayna geeyeen masar baan idingeynaa ma yidhaaheen kadib waxayna keeneen halka liibiya nagu soo shubeen markay nagu soo shubeen waxay nagu soo dulaceen waxay yidhaaheen intaasoo lacag la idinka rabaa kuwaasi xagee idinka soo kaxeeyeen ma boosaasa idinka soo kaxeeyeen may boosaasa nagamay soo kaxaynin xagee idinka soo kaxeeyeen annagaa ka nimid xagee idinka soo kaxeeyeen boosaasa annagaa ka nimid kuwaas xagee idinka soo kaxeeyeen hooyo waxay naga soo kaxeeyeen Itoobiya naga soo kaxeeyeen caruurtaada ma la hadli karaa nacam Itoobiya markay naga soo kaxeeyeen waxay yidhahdeen ma la hadli karaa oo ku dhaca la hadal diyaacado dib ma la halo halo ha seeta walaal nabad walaal magaca waxaa yidhaha khadra daahir xagee ka timid qadro hooyada balse anaga hadda isaad ku hadlaysa waa hooyada aniga iyo hooyada iyo gabar kaliyo laba caruura ha ka waran noloshiina ka waran walaa nolosha
هي إمسان اللي قربها waxaan laga rabaa nafarkiisa dad 1500 وما سنتها قبل حنوصل يقولي gabadha xanuunsana kale hooda hello وحا إساتها ولا المفيعنتها هاي fiican walahi ولا السيلقوها يا lagu hadlan bay xanuun jidhko dhan bay xanuunaya marka هي واحد باتو اللي بو جيستي مية جيران أو جردل يو حاسي ha walaalo bayda waa lay dilaa walaa ولا الأديك حاجة كتي من مركز هوري anigu Ethiopian ka yimid walaa مقعقو سدحان hoodo هذا محل وقدرة hoodo diiri Axmed هذا ديري أحمد مركز ما يغسلنا جوكته هذا sanadiyo laba bilood هذا اللغة سيدة وحكايهين سيدة لقوها يا بالإيشك marka raxminka wallaha gariirta kama socon karo xadaan siraa kacoon gariiraya gabigayga midkayga xaaladayda arkaysa wala suuliga ma tagi karaya xitaa واقرتي الله كعافية هذا الله كعافية إن شاء الله أمد الصوماليات إيو دولة الصوماليات ولن وحن رجينا إني باقى جاران إني جاري دوننا بريالك يقولي إن شاء الله waxaa ii sheegtay magaaladii joogaan dadkan magaaladii joogaan wallahi abti hadda yani meeshii joogaan kuma shaaci kari anaga laftirteena meel yani saxaraha waay ma garatay meesha hadda joogno oo yani aan joogno meel saxaraha waxaa waaye oo yani maaragta oo magaaladaysan ka dhaweyn wax magaala oo maanta loo dhow oo lagu magacaabi karo ma jirto aadaad u mahadsan tahay waajibaa ku saaran waa kula dardaarmaya waajibaa ku saaran dadkaas marka la dhibaateynayo inaad isku daysid inaad dhibaatada ka khafiifiso waxaad kaloo aad samaysaa dadka ugu daran oo abti wallahi tiri aniga been kuma sheegayo waxaana samayn karin waan sameynaa ma dhihi karo ummadda Soomaaliyeedna uma ballan qaadi karo meeshaan yani waxaa iskala dad caraba يعني أنا أيها وحبا مدامو كستا يعني وحان داما ويعني عن سوليدا قلايو حرنما عن سوليدا كو قلايو أنا أغسو بحايو بس ما يوحكلو زيادة مداماني مرة قار بريو كان هذا مركي مادان أو يعني عرفت مرة قار قراعان وحاجر مان تدتي بلانسن وأنا عدتك وضو الله هذا مني العايتو يسودر عيان بريد دتك اسمت كمدا يعني ما ركتا عديقو سودر وايو aniga marka yani maaragta u maqan yani wadada yani ayaga hadda marayaan tu ka darana anaga marnaa ma garatay waa gartay dadka caawa baxay imise gaarayaan tiradooda wallahi dadka caawa baxay ilaa iyo waxay gaarayaan 180 qofood yani maaragta dadkaas dad wax haysta u banaayeen meesha kumaysan raagin ilaa iyo adiga waxay lacagtooda ku dhameeyeen adilla iyo 17 cish wax saas amal inala joogeen dadkaas dhan oo dad lacag haysto wax meel soo dhigtay ahayn laakiin waa dadka in maanta wax loo qabtan rabo dadkan meesha fadhiya dadaya u jeedo waaye tiradooda meeqa way dadkan tiradooda maybe waxay hadda gaaraysaa ku dhawaad ilaa iyo 260 ay gaaraysaa dad kale oo waxaa jiro oo ayagan meel kale oo ku jiro laakiin meesha hadda yani waan haleeli waa inaan tago ma garatay marka hadda 200 iyo wama zaada halkan fadhiso qofkii meeqa laga rabaa wallahi qofkiiba yani maaragtaa lacag 8,000 intuu ku fadhiyaa waxaa la sameeyaa qoladan waxay ka kala yimaadeen meelo kala duwan yani qaar Soomaaliya ka yimaadeen qaar Jigjiga ka yimaadeen qaabka ugu yimaadeenna waxay tahay ayagoo waxay tagayaan qolo yani maaragtaa dadka soo wado qoladaas dadka soo wadaana la soo yani dadkan la soo xiriirayso waxay ku leeyihiin dad 10 qofood aan rabnaa inaan idin soo dirno lacagtooda soo dirsada lacagta Liibiya laga diraa xagga markay ka qaataan يعني وحال سو غارسيا السودان markii la soo gaarsiyo qolo kala qabato hadana qolada kala lacag loo diraa waxaan meesha fadhiyo wax maanta 1000 shilin ka soo baxay oo inta jooga ma jiro dhamaantooda lacagtooda lagu bixiyay nafar walbana inta waxa lagu keenay lacag $6,000 وهاجاك adiga imisa sana joogta halkan imisa sana joogta halkan aniga sanadii 6 bil adiga maxay u bixi weyday
aniga yani maaragta qaab aan ku baxo yani macnaa ma jirto maanta dadkan yani iga rajo fiican qofka imaanayo lacagta dhiibanayo baxayo maanta yani maaragta waxani asaan ku leeyahay nin asig is xukumo ma ihi waxaan ahay nin yani maaragta la xukumo oo la haysto ma garatay waa gartay maanta yani haddii lagu dhaho shakhsi Soomaaliya Liibiya joogo ka shaqeeya haddii lagu dhaho shakhsigaas yani maaragta niyadiisa ma ahan inuu asig uu ka shaqeeyo xoog yani maaragta qasab uu ku shaqeeyo waxaad garatay soo ma ahan maanta shakhsi Liibiya joogo oo Soomaaliya oo asiga xornimo haysta ma jiro suudaan Soomaaliya joogto oo arintan ka shaqeysata oo dadka soo wada Ethiopia sidoo kale Hargeysa Boosaaso Muqdisho waa sidoo kale soo maaha dhamaantooda sidoo kale waay وهجاج أدت أمها سنتهاي برامج كان فوضيسي تلفون كاجو عن كسو هلي قوسس كي شر الدباتين يي قف كم إذا قوسس كاس تلفون كاجو يسود دري هل كاسان كهلي سيدا سان كولسو حريري إلا يحال يدوم وكولسو حريري يي إنك سوساك تلفون كاجو قبطي وحرجينا يا وحيالها عصب يو دباتوين كان سومالي ضد كان لجوها يو ضد كاني إن الدور كاجو كعيارتو ودريمي كلا دباتا كوجفتا حد ويكاك المغيه وافوضيسي dadka Soomaaliyeed oo dhan la socdo waxaan rajaynaynaa macquul ma tahay ugu dambeynta hadaan ku weydiiyo dadkan hadii Suudaan lagu celiyo Suudaan mu lagu celin karaa oo hadhow Suudaan in laga qaado dalkii lagu celiyo suuragal ma tahay arrinkaasi horta arrinkaas suuragal way tahay laakiin qolada haysato waxay tahay hadii yani aniga waa nidin awooda in macnaha qolada aan si tartiib ah aan u dhahooniyo barnaamijkaas jiro dadkan lacagtiina waa laga siinaa laakiin idinkana waxaan idinka doonaa in dadkan yani maaragta oo gawaaridooda saartaan oo Suudaan ku celistaan safaarada ku sintaan hadii inta aan dhaho yani maaragta waa laga yaabaa inaan ka dhaadhici karo inkastoo yani maaragta hadda aan ku bilan qaadi karin oo waan ku sheega aan ku dhigi karin laakiin arrintaas ayagana Soomaali oo yani sidoo kale ayagana si xoog ah ku shaqeeya jiro qoladaas arrintan la kaashana hadii yani ay dhaan u wada sheegayna markaas oo ku sheegayna waxa jawaabtaan haween dambe ku soo siinaa telefoonka arrintaas la xiriirno isku day dadkaas ina ka dhaadhiciso lacagahaas oo dhan lama bixin karo waa lacago badan dadkan aad u badan yihiin lacago macquul ah oo kooban in la siiyo qolooyinka Liibiyaanka dadkan gawaarida in la saaro safaaradda Soomaaliya iyo Suudaan in lagu simo hadhowna Suudaan markaas ayada safaaradda ay la wareegto oo dalkii dib loogu celiyo dadkan oo sidaad u jeedo wadankood inay ku noqdaan way rabaan marka la igu celiyo wadankood inay ku laabtaan ma doonayaan su'aashaas ii weydii mar kale aaday orawaan war hadii yani maarta intan laga saaro in wadanka ku laabataan ma rabtaan dhamaantooda diyaar u yihiin maanta yani wadanka saaris iska daa maanta diyaar waxay u yihiin hal mar in qori loo soo qaato la baabi'iyo diyaar u yihiin يعني ما رأيك دك ماشي كويس ذاك بدل هذا ضمها سنتهي هذا كاجم هاد علمية عاو وحمعني ولا لو والله بيتونك بري الصوم كسعد والله العظيم نكي قالنا الله دارتاي إن أنا وقتك إن أنا الله بيتونك بريبة حل سرنا وعتاب كلي بيوم بان عباء وحكى الله سيمتر تركي في حساسية وحن شوقا سنة يصدح بلد بن شوقا تركي تسمي يقول أنتي والله ساعات كسر وحنكو حساب تما بس بالبلغ ما دمن مسكتم ما دمن اسمني مجرو باو سocota iyo rajab mina toornay hadii dalkayga loo celiyo maanta waxaan diyaar u ahay in dalkayga way dib ugu laabto oo waqtigiga khasaaray aan xorriyadii Liibiya laga qaaday xorriyada dalkayga dib ugu laabto xorriyadaan helo oo baasada walaalaha natiidin naga soo saar meeshan iska dhiciiliga walaalayaal hada walaalaha natiidin walaalayaal ma sanid walaal ayo ayati وما سنت ولا ماما السلام عليكم وعليكم السلام ماما هوي مقعا هوي سلمان وي سلمان ليبيا كاي متسمانو ان تليفون كجراتي هايغا غاري ولا سو خيلنا كويس
وهاجاج walaalayaal aad u mahadsantihiin waad u jeedaan dadkii Soomaaliyeed dhibaatada haysata iyo dhibaatada ay ku sugan yihiin waad u jeedaan qabyaalad iyo qurun wax ma tarayo waxaan yahay dhibaatada haysata ku dhawaad taysan marka sidii dadkaasi loo gargaari lahaa in howshoodii la galo hadday suuragal noqoto in la geeyo Suudaan laga fududeeyo Suudaan la geeyo Suudaan safaaradda Soomaaliyeed halkaas ay damaanad qaado ay la wareegto dalkii lagu celiyo dhalinyarada sidaad u jeedeen waxay diyaar u yihiin wadankooda in lagu celiyo ayaa ka go'an in wadankoodii lagu celiyo ayay diyaar u yihiin dad waxaa ku jiro muddo la la'aa oo qoysaskoodii nolol iyo geeri kolay meel ay joogaan la la'yahay laakiin sida muuqata yarkan telefonkiisii gabadhii shalay la garaacayay iyo labadii wiil la garaacayay mid kamid ah eheladoodii ayaa telefonkan ii soo diray xalay oo dhan la xiriirayay ilaa iyo xalay oo dhan ayaan la xiriirayay telefonku ma uusan iga qabanaynin maanta ayuu iga qabtay wuxuuna ii sheegay in barnaamijkan uu caawa uu sameynayo dadkaasi meel isugu keenayo markaan arrintii u bandhigay waxyaalo badan markaan kala hadlay aan u sheegay dadka Soomaaliyeed in dhibaataysan yihiin isaga arrintan magafo hala shaqeysto musiibo iyo san la shaqeysan naftiisa waxaa nooga muhiimsan boqolaalkaasi Soomaaliyeed in naftoodii la badbaadiyo ayaa markaasi ayaa muhiim ah waxaad la socotiin qabyaalad inaysan waxba tareenin reer hebel iyo reer hebel iyo reer hebel inaysan waxba tareenin liibiyaankaasi waad u jeedaan sidii dadku u galay caruurta sida u dhibaataysan yihiin hooyooyinka sida u dhibaataysan yihiin sida u dhibaataysan yihiin gabdhaheena Soomaaliyeed hooyooyinkeena Soomaali qaarkood inay curyaameen oo lugaha ay beeleen wiilasha sida Soomaaliyeed waad u jeedeen wax ka muuqday marka waxaa wanaagsan qabyaaladda in la iska dhaafo Soomaaliha isku tashato nabadgelyo